السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عن ونكسن صاحب ريال إذا لهانتي ملو بدنيا كجوكتان مركو هروح عندي كجماعة علنا الناس إذا تحناها عضلة سعطان ورئيسي قبل الجيني جاء الريما ورئيسي كان واحد قبل الله يشاء بكر الشيخ أحمد البدري وأهورية سومالي إسلام كانوا قرب وقته قيبت أفراد أيام مرينا ريما وإلى جوكتا هالكي أيام كسي أم بغادنا وأنك بالله بدورنا ريما مركو هوري سورد معناتي إيداد يسو درتي أضو حلوة عناية واللي بحلوة كيسماية عناية ما توسي كلا داوضياش ودول عدينا سميات حشوني صار ريما معناها توس أيانو فاهمين أوكي أنا تصيب waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Rayma dadka insiga waxa ay leeyihiin madaxweyne ra'iisul wasaare ra'iisul baarlamaan Soomaalida jinniga ah ma nidaamkaas bay iyagana leeyihiin mise hab maamul ka duwan ayaa u samaysan bulshada jinniga ah ee dalkan waxa ay leedahay mandaluul jandaluul iyo maasdaluul waana hab ku dhisan saddex awoodood oo kala sareysa midda koowaad ee mandaluulka waa golaha sare ee laga maamulo dalka waxaana mandaluulka ugu sareeya al-sayid hirqiya oo talada hayay kunkii sano ee la soo dhaafay jandaluul oo ah awoodda ciidanka ee jinniga Soomaaliyeed waxa aasaasay General Shushu 1500 sano ka hor haatan xilli dhow oo 200 sano ka hor ah waxa loo dhiibay General Shamiluun waana awoodda ciidanka jinniga ee Afrika ugu xoog badan golaha masdaluul waxa ay ka kooban yihiin xubnaha maamulka min heer wasiir ilaa gudoomiye degmo dhammaantoodna waxa ay ka kooban yihiin 11 dhuuqe 27 jiite iyo 271 rife سؤال لكن ريما دوقة جيتة يرفع ما حد كوضع دوقة إذا كواحد هذا وزير جيتة وقدومياش قبلها تطبيق لواتن كعيدلك رفياشنا وقدومياش دقموينك وحاجرك والله دهله رفياشة كواسو إذا كنت قانان أجاسي ميال أما ماريال وادقي يا وسير ريما سؤال كهدي أم كويديو ريما jinnigu ma leeyahay dagaal oogayaal mooriyaan iyo ganacsato hubaysan mandaluulka iyo jandaluulka wariiqayaan wixii edab daro lagu arko jundiga sumsaaq ee dalka uga awoodda badan xaruntooda waxay ku taalaa gobolka Ganaane cidii edab darsata waxa ay geenayaan xabsiga Jamaljaan dagaal oogane ma jiro jinni isuma dilo sida shanfaroodlaha xitaa ciidanka koofiyadleyda qori looma ogola laakiin ciidanka koofiyadleyda waa kuwee ciidanka booliiska aad dhahdaa anaga koofiyadley aan dhahnaa hubkooda dhan waa koofiyado naasquud ayay nagu waaleen muxuu yahay naasquudka maxaa ka wadaa naasquud ani ma fahmin shaxaad ma dhahdaa haa waa shaxaad waan gartay Rayma aniga ayaa dii wahal rabtaa saan u malaynayo su-aasha ugu dambaysa ee dhanka siyaasadda haddii aan ku weydiiyo waxaad ii sheegtaa magaca gudoomiyaha gobolka Banaadir ee jinniga Soomaaliyeed dhuuqaha gobolka Saafaadiin waxaa la yiraahdaa Jamaaludiin waa nin khibrad badan oo waayeel ah 2500 sano ayuu jiraa 700 sanadood ayuu Saafaadiin dhuuqa ka ahaa markii uu talada qabanayay magaalada Saafaadiin waxa ay ku ekeed inta u dhaxaysa tuulada Daaguuni oo idinka u taqaanaan Qalimo iyo deegaanka Firdows loo yaqaanay Gandarshe haatan Saafaadiin dhinaceeda koonfureed waxay gaaraysaa deegaanka Ruusaatiin ee aad u taqaanaan Dhaaytuba taasoo ah baraawo gadaasheeda dhinaca waqooyiga wuxuu gobolka Saafuudiin ku eg yahay Booladiin oo aad u taqaanaan idinku Warsheeq Rayma Saafuudiin ma leeyahay garoon diyaaradeed oo caalami ah oo ay diyaaraduhu ka duulaan mise waxaad isticmaashaan kanaadan cadde garoonka caalamiga ah Saafuudiin wuxuu ku yaalaa xaafadda Masagoole ee u dhow madaxtooyada Mandaluulka وهالكي حافظة مسجولة وماشي عدو تقانان بولفولي يا أود حيسا قريولي يبورها كبا ريما مجالة السوفادين أنا قاعد قانون مقدشو أما بنادر إنسي أهان واحد جندد لغو قياس الله إلا يسدح مليون الروح بل إذنك سوفادين يمسجيني أهايات دقن guud ahaan dalka Soomaaliya jinniga ku nool waa 7,000 oo milyan 240 milyan oo kamida waxa ay degan yihiin Soofaadiin نالكي يا قابني نالكي يا كعيارة ريما إن أصحابك كل صوت نالكي كعيارة يعني لحظة بليز إن هدي عن بنك السياسة ذكوي عنه سيدا دواركتها إن عاد يغش كيسو سيدا وجعل كإنسي أسامة يجينيجا ويدمين هذا الريمان نالكي يدمين لحظة بليز
annaga welwel nagu abuurayaan halkeen kasii wadaya arrimaha su-aasha haddii aan dhanka siyaasadda ka weecano sidaad u aragtaa in aad iiga sheekayso sida uu jaceylka insiga u saameeyo jinniga iyo arrin insiga dhexdeeda caanka ah oo ah gabdhaha uu mar walba ka korqayliyo wiil inta badan gabdhaha jinniga waxay jecel yihiin wiilasha insiga ah siyaabo badan ayayna ula dhaqmaan waa ay dhacdaa in gabar jinni ah oo aan muslim ahayn ay wiil insi ah noloshiisa la wadaagto iyadoo aan u bandhigin inta badan dadka aan salaadaha dukan kuwa aan ilaah ku xirnayn ayay gabdhahaasi jinniga ah daneeyaan oo ka qaraabtaan tan ugu daran waxa ay tahay gabdhaha jinniga ah ee muslimka ah ee aan doonayn inay qof insi ah qiyaameeyaan kuwaas ayaa dhibaato badan kala kulma dhinaca xiriirka jaceylka ay la sameyn lahaayeen ragga shanfaroodlaha ah tan kale gabdhaha laga dulqayliyo waa sheeko gabdhaha Soomaalida ee shanfaroodlaha ah ay wiilkay ka helaanba ay dhahaan wuu iga dulqayliyay waa hab xariifnimo ah oo ay ku sheegtaan inay wiilka jecel yihiin waliba kuwa qooq bilowga ah ayaa ugu badan haddii qof laga korqayli karo maan aniga ka korqayliyo kan 30 sanadood ee aan jaceylkiisa dartiis u silcayo ee igu qasbay inaan liido dego si aan gurigiisa uga ag dhawaado waxaas ma jiraan mahadsan dareema midda kale waxaad hadda ka hor iiga sheekaysay dhibaato jaceyl ee ku dhacday gabar saaxiibta ah oo lagu magacaabo Najuum Ruuxaan taas oo wiil ay jecleed oo insi ah u dirtay dhambaal jaceyl oo aad u yaab badan bal arrintaas iiga sheekay haddii aadan waxba ka qabin qarabtun qarabaanuun qusqusa waan ka xumahay Reema waan ka xumahay xaqiiqdii please uguma talagelin in aan ka xanaajiyo Reema please ifaham isdeji marka qisada waxnaada Reema uguma talagelin aan xaqiiqdii in aan ka xanaajiyo Reema isdeji ma kugu xanaaqin aniga balse waxaan ku dhawaaday inaan dawaqo saaxiibtay Najuum Ruuxaani wali mawjadaha dushooda ayay ligan tahay waxaan ula jeedaa kooma ayay ku jirtaa ama way suuxsan tahay maalintii wiilkii ay jecleed ee shanfaroodlaha ahaa uu qaraxa ku dhintay ayay kooma gashay هذا كهريمان واحد يشكتي إن دمبال أدو عجيب إن نجوم أخرتي ويلكاس أيش عليه الشباب قرحوا ذكور انتي دمبالكاس ما إنه آخر كرتاه dambaalkaas wuxuu ahaa mid aad uga tarjumayay dareenka saaxiibtay haddii uu insi dareen leeyahayna runta way ugu sheegtay wiilkii ay jecleed wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah qurux badan mar dhow jaamacad dhameeyay weli aan guursan shaqo dowladda ka helay oo ay ku hanweyneed in ay kasbato inta uusan guursan gabar shanfaroodle ah waxyaabo badan ayay samaysay si ay kalsoonidiisa u kasbato dhambaal badan ayay u dirtay balse midii ugu horeysay ayaa ugu cajiibsaneed inta aadan ii akhrin dhambaalka wax ku qornaa wax iiga sheeg waxyaabaha ay samaysay si ay isaga u kasbato saaxiibtay waa ay istusi jirtay wiilka bishii dhowr habeen ayay riyo inta ugu timaada waqti kula qaadan jirtay waqti waxaan ula jeedaa caadi ah isagana riyo caadi ah ahaan unbuu arrintaas u qadarin jiray waxaase yaab ku reebi jiray inuu mar walba riyada ku arki jiray hal gabar oo keliya taasoo uusan soo jeed weligiis muuqaalkeeda ku arkin asxaabtiis ayuu uga sheekan jiray in habeen walba uu gabar aad u qurux badan riyada ku arko soo jeedsa uusan weli kula kulmin iyadana marka uu ka sheekeynay riyooyinkaas cajiibka oo ay iska dhageysan jirtay mararka qaar aniga xitaa Najuum waan isa soo raaci jirnay si aan u dhageysano marka uu saaxiibadii uga sheekeynay riyadii xalay waana ku raaxaysan jirnay saaxiibtay waxyaabaha ay sameyn jirtay waxaa ka mid ahaa inay geed guriga ku yaalay ku soo degi jirtay iyada oo isu soo ekaysiisay shimbir isagana shimbiraha wuu jeclaa sidoo kale waxaa jirtay bisad gurigooda joogtay oo uu jeclaa saaxiibtay inta bisada banaanka ku mashquuliso ayay isu ekaysiin jirtay bisadii uu jeclaa markaas ayay isaga oo fadhiya lugihiisa hoostooda marmar jirkiisa isku xoqi jirtay isagana dhabarka iyo qoorta ayuu u salaaxay isaga oo mooday inuu bisadii guriga joogtay ay tahay taasi waxay ahayd sida kaliya ee ay waqtiga tooska ah kula qaadato saaxiibtay dhibaatada xanuunka leh ee dhacday waxay ahayd markii uu wiilkii bilaabay inuu garaysto in ay noloshiisa qayb ka tahay gabar jin ah waliba uu bilaabay inuu soo yaro dabco oo aamino uuna ka dhursugayay in uu la kulmo gabadhan riyada uu ku bartay ayuu wiilkii qarax ku dhintay saaxiibtay waxay doonaysay inaysan qalbigiisa dhaawicin oo sida aniga iyo adiga hadda isu arkayno cabsi la'aan heerkaas in ay isla gaaraan markaas ayay doonaysay inay bilowdo inay toos noloshiisa uga mid noqoto nasiib darro nolosha quruxda badan ee ifafaalaheeda sida quruxda badan u soo muuqanayay waxaa cimrigeedii soo gaabiyay al-shabaab oo aan cidna nolol u ogolayn Reema dhaqdhaqaaqa jooji please Reema waan dareemi karaa inaad caajistay laakiin dhaqdhaqaaqa jooji waan dhammaynaynaa gabagaba marayna adigoo aada u mahadsan hadda ma ii akhrin kartaa dhambaalkii koowaad ee Najuum ay u dirtay Axmed inta uusan dhiman
haa dhambaalka waxa ay ciwaan uga dhigtay sidan raxmad himad iyo jacayl kani waa dhambaal kaaga yaabsan doona si walba waayo waxa aad ka heshay qolkaaga dhexdiisa mana ogid cidda kuu soo dirtay inkastoo aadan aqoon haddana waxaa kuu soo diray qalbi uu wadnihiisa ka samaysan yahay nuulka badweynta dhigiisa uu yahay malabka shinida dheeha iyo cadkiisuna ay yihiin xariir jannaad qalbigaas oo ay buux dhaafiyeen raxmad himad iyo jacayl adiga kugu samri kara durba maskaxdaada waxa ay bilowday howl ah in aad isweydiiso tolow yaa dhambaalkan kuu soo diray waxa aad nagedgedinaysaa warqadda adiga oo raadinaya magaca qofka soo diray waan ka xumahay inaad sidaas ku mashquuliyo waxaan aad uga jeclaan lahaa inaad magacayga durba ka aragto bilowga dhambaalka kuna faraxdo balse haatan magacayga kuma qorna dhambaalka sidaa daraadeed waxaan kaa codsan lahaa in aad fariinta aqriso si aad u fahanto magaca gadaal dambe ayaad ka ogaan doontaa qofka dhambaalka kuu soo diray waa qof farxadaada aad u jecel waa qof ku himilooda in ay farxadaada dhalinteeda qayb weyn ku yeelato waa qof marka aad socoto laafyahaaga daawata si ay niyadda ugu dejiso waa qof marka aad fadhiisato sheeda kaa qooraansata si ay kaaga ilbuuxsato waa qof marka aad jiifto ku dul timaada si ay kuu wehliso neecaw kalgacal oo aad u macaan ayaan kugu sayriyaa marar badan saxansaxo kasoo gufaacaysa qalbigayga waxyihiisa ayaan kugu harqiyaa dhididka waxaan kaaga masaxdaa cad aan ka soo jaray bartamaha wadnahayga marka aad hurdada ku daasho oo aad isyara gedgedinayso waxaan kaa caawiyaa gadoomidda marka aad hamaysato adiga oo hurda masar aad u udgoon ayaan afka kuugu aadiyaa si aan kaaga ilaaliyo saxarka marka aad dhex gasho badweynta hurdada inta aan barkintaada agteeda soo fariisto ayaan mar ku daawadaa mar ku afuufaa si aan kuu qaboojiyo mar waan ku yara salaaxaa si uu jirkaaga u dareemo nafis iyo raaxo mararka qaarna waxaan kuu shidaa muusig aad u degan iyo hees oo dabacsan oo macaan intaas kadib waxaan isku howlaa sidii aad u dhexgeli lahayd riyo macaanteeda quruxdeeda ilqabowsigeeda adiga mooye uusan qof kale ka sheekeyn karin taa waxaa ii dheer marka aad hurdada kasoo kacdo oo aad doonayso inaad sariirta ka degto waxaan seexdaa dhulka meesha aad lugaha dhigayso si aan kaaga ilaaliyo adeega marmarka ama mutuneelka dhulka marka aad sariirta ka degayso dhabarkayga ayaad ku istaagtaa waa sababtaas darteed sababta aad lugaha uga dareento raaxada tirada badan xusuusno mar walbo ay xaaladaadu istaagto in ay qofku jecel agtaada taagan tahay oo neecaw qabowna ay kuga afuufayso mararka qaar aniga oo isleh leer qabow uun ku yara afuuf ayay faruuryahayga si kama ah ay u taabtaan wejigaaga markaas ayay xaadaadu wada istaagtaa waan naxaa oo waxaan is iraahdaa armuutoosaa haddana waan farxaa waayo aniguba xaadaydu waa ay istaagtaa howl aan qabto waxaan ugu jeclahay taabashada garbahaaga adigoo aan i ogeyn laga yaabee in aadan ii ogolaan lahayn in aan korkaaga taabto haddii aad i ogaan lahayd waayo wax xiriir ah oo toos ah inagama dhexeeyaan balse waxaan dareemaa in farahayga iyo qalbigaagu uu xiriir wanaagsan ka dhexeeyo taas waxaa caddayn u ah markii ay farahayga taabtaan jirkaaga durba qalbigaaga jawaabtiisa ayaan ka arkaa jirkaaga dushiisa intaa oo hadala waxaan kuugu qoray in aan kuu caddeeyo in aan ahay nafsi dhab ah kuu jecel waxaan u hilow qabaa la joogistaada waxaan u hamuun qabaa taabashada jirkaaga hadda waa taabashada jirkaaga hadda waa jirka oo idil farahayga hadda waa faraha oo idil ee waxa ay ku hanwan yihiin inay kormeer howleed ku soo maraan dhammaan oogadaada mintin ilaa cirib bog iyo dhabar ilaa baaca hoose loo dhaadhaco ma oga sida aan eebbe weyn ugu mahadnaqi lahaa haddii aan arki lahaa bushimahayga oo dhunkanaya meel walba oo jirkaaga ka mid ah sankayga oo hadba tartiib ugu sii siqaya meermeertooyinka jirkaaga ee uduga badan intan oo dhan waxaan doonayaa in ay dhacaan adiga oo igu faraxsan adiga oo idhoola cadaynaya adiga oo inta aad gacantayda qabatid iisoo dhawaatid hab isiisid kadibna igu qabatid laabtaada ilaa aan kaa dareemo in labadeena jira isugu dhegaan sida labada fidqe ee shaatiga marka la feeray diirimaadka aan dareemi lahaa marka aad laabtaada igu qabato waxaa ka dhalan lahaa tamar ay iftiinkeedu shidan karaan dhammaan mucaashaqiinta si ay habeenka mugdiga ah u helaan fursad ay ku akhristaan dhambaalada jaceylkooda daqiiqad waliba waxa ay iila mid tahay maalintuna waxa ay iiga dhigan tahay sanad mar walba waxaan ku rajo weynahay in aan dhankayga soo qooraansato oo aad qalbigaaga iga siin doontid boos aan kaga noolaado xitaa haddii booskaas yahay mid la eg taako dherarkeed
riyadaydu waxay dhab u rumoobi lahayd haddii aan arki lahaa mar qura anigoo hoostaada dhambacaada adiguna aad indho raxmad leh igu eegaysid gacantaada midig ah dhabarkayga hoos ka soo hayso bidixdaadana ay horaadkayga saaran tahay bushimahaaga ay gaaf wareegayaan qoortayda sankaaga caaradiisa ay si halhaleel iigu afuufayso saxansaxa jannaad ugu dambeyntii ha ismashquulin hana isweydiin sida aad iigu soo jawaabi lahayd haddii aad jawaab isiinayso waxaad raacdaa habkan habeenka ugu horeysay aad riyada ku aragta gabar xiran dhar wax jaalle ah oo ku sawiran yahay wadna gaduudan lambarka ku qoran ilaanka gabadhaas aad riyada ku arki doonto gabadha gacanteeda uun ku qor derbiga musqusha qofna ha u sheegin sababta aad lambarkaas meesha ugu qortay waxaan kuugu soo gabagabeynayaa farxad iyo jaceyl anigoo aad kuugu himad qaba dhambaalkii koobaad ee saaxiibtay nujuum halkaas ayuu ku egyahay wow horti aad ayaad umahadsan tahay Rayma runtii dhambaalkan wuxuu igeliyay qashuuc wiilka muxuu sameeyay marka miyuu usoo jawaabay saaxiibtaa mise Rayma waa baxday Rayma way baxday nalkiin waa nagu damisay waxa laga yaabaa arrimo degdeg inay soo galeen qaybta shanaad ayaa su'aashan jawaabteeda uga bogan doontaan inta ka horeyso nabadgelyo